مواطن كان أهل السوداء Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa qof walba wixii dhibaa horta dheelma ummadda Soomaaliyeed marka kale waxaan ka codsanayaa ragganagii xabsiyada ku jira wax nolol aan haysanaana ma ay jiraan walaalayaalow dawlad bahaday jirto Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka codsanaynaa inuu noo soo daayo ragga xabsiyada ku jira oo maxaan ku iraada hor iyo dible ayaan ka codsanaynaa nabadgelyan rabnaa deeq xasan macallin maxmed la yiraahdo deeq faalac ku magac dheer ma fahmaysaa waxaan ka xunahay odayaashaana la xirxiray maxay ahaday qaasatan in caddo la tirdilay Cabdiqaadir Cali Umar la tirdilay insha Allah ta'ala haday saan ku sii socoto magaalada saas aan gilgilayna saas Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan Soomaalida waxaan ka codsanaynaa qaas ahaan beesha Habargidir waa inay ka dhiliidaa dadkoodii wax galay aqoonta lahaa in maanta dhulka lagu jiyo waana ka dagaalamaan dumarka iyo ragga ugaasyada waana ka dagaalamaynaa waana ugu dhidhinaynaa meel kastana waa ugu galaynaa anigoo hayaan ashkar Umar koow anaa ka asalaynaa hogaamiyaha shirka la galay go'aanka la qaatay ee laga soo waday gobolka uu joogay ee la soo siray dawladdu waa ka soo wada kartay waxa loo diray dhaqameedii waxa loo diray ugaasyadii waxa loo diray hogaamiyaashii waxay keenay airportka waxa gacanta loo galiyo waa ka dhidhinaynaa gaalo cadow ayaa gacanta loo galiyay haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa oo nahay beesha Habargidir inaana doonayn waxa mid beesha Habargidir waxaan ahay gudoomiyaha ururka dhalinyarada beesha Habargidir waxaan ka codsanayaa Soomaalida Ilaahay iyo dadweynaha iyo dawladda nimanka odayaasha la soo siray ninka madaxda oo xiran dadkii lagu jiiday banaanada nimankii lagu ballan furay oo madaxweynuhu u horeeyo inuu ballankii xejiyo oo odayaashii magdhowgooda laga helo magdhowgooda haddaan la helin ana la soo daayan saacadaha soo aadan wax ka xun ayaa ka dhici doona ninkii la soo furo ragga xanaan la sii daayo arrinta lagu bartilmaameedsamayo qabiilka Habargidir waa ka dhiidhinaysaa waana ay ka hadli doontaa haddii Ilaahay mana joogin doono mana fadhin doono mana la shaqayn doono in marka koobaad la soo daayo bilaa shuruud marka labaadna Xasan Daahir la soo daayo taas baan u taaganahay haddaan la soo dayna waxaan idiin sheegaynaa magaalada dhawaa xiraaye Allahu Akbar haddii kala jiilku Xasan waa isjarahaya jidgooyada taala Xasan degdeg uga jawaab haddii kala jiilku Xasan waa isjarahaya waa Xasan Sheekh Maxamuud waxa weeye madaxweynaha Soomaaliya haddii garabashin iyo qabiil oo sarabin ha soo daayo dadka masaakiinta u xirxiran waxa weeye ha israacda diidaya ha islaamsateeda gaadkii asagu saaro anagana saarayna shacabkiisii sheegaya haddaysan muddo daqiiqadaha ay ku soo dayn Xasan Daahir Aways ayaga aqab xumaan ay kala kulmi doonaan dad xabsigana waa loo gali doonaa meel alla meel ay joogaan dawladana sidaas qabiil bay noqonaysaa qabiil baan Allah Xasan Daahir sagaalka dambi badan oo ka dambi badan baa la haystaa had Xasan ka codsanayna Xasan Daahir soo nabad qaba in loo soo daayo oo naloo keeno ayaan ka codsanaynaa hadoo mid isdiibay oo dhiibay xoog bay ku keenay ma is soo dhiibin xoog ay ku soo qaateen Allahu Akbar